كبير كسو ضيعان كل بعد سنة كسبقوا هني فرصة كلام السين كذا روحي كل عادي مدو 5 سنة هذا الجوجا واقف تباي waxaan deganaa magaalo gooniye wiilkaasna wiil aan dirisna haayay walaalo haayeen muddo badan qalbiga waan ku haan jiray waxaan isku day jiray marka ugu isku meel baa joogteen wadada ku iga soo horbax way islaam jir sida qof walaashiisa oo kala laakiin aan qalbiga wax kale tan ugu hayn maana u sheegan laakiin markii dambe waxaan isku day inaan u sheegto waan ka cabsooday muddo ka bacdan waxaan maqlay inuu dhaqaajiyay oo magaalada oo dhan iskaga tagay waan raadiyay meel aan kala xiriiro waxaan helay facebookiisa waxa uu walaal magaalada dhan waan iskaga tagay waxaan joogaa wadanka Sweden صح markii alxamdulillah waa dhahda xagga tagtay ani niyad waxaan iska geliyay marka hore hadaa jecelkaaga u sheegto ama ka oo istahaa qoftaan marka xagga joogto ku sheegaysi hadda marka dibada timi lacag kaaga baahan tahay moosdaha tishaan aniga sida ula socdo oo hadana aan ka qarinayo habeenkii dambe uu sheegay waan isdiiri geliyay waan u sheegay markaas waxaan dhahay waan ku jecelahay asaga laakiin iguma wasal xumeen u soo dhaweeyay aniga intoo iga maqnaa wiil kale ayaan jecelahay wiilkaan markaan helan wiilkii kale waan ka tagay laftin waan ka badashtay waxaan isku dayay jaceelkii maadaama aan helay inaan tixgeliyo asaga oo kaliya aan u jeedo ninka kale aad ka tagtid laakiin muusan tixgelin asaga waayo hooyaday ayaa xanuunsatay anigana waqtigaas lacag gacanta kuma aanan helin lacagta aan hay isbitaalan ku geeyay lacagta kale waxaa leedahay daawadan u soo gad daawadii waxay noqotay $150 $50 waan haystay laakiin $100 waan waayay asagii aan u sheegay waxaan dhahay hooyayga xanuunsan sidee kale ah asagii muusan iba tixgelinba waay hawdii jiray mar waliba hadal ma cunbo ula hadli jiray hooyaday way si xanuunsatay wiilkii kale waxaan dhahay hooyayga xanuunsan warqadan niidii daawo ku doonay waxaan sameeyay waan garan laahay صح wuxuu dhahay ma lahan ana ku imaanayo oo ii yimid magaalada Muqdisho ila jooga warqadii ay qaaday daawadii igu keenay maamada ii kale waxay hayaan dhaasay wuxuu jiraa markaas wuxuu walaal lacagta inta waa qaali marka intii isbuuciga warsuug waxaan dhahay qofku ku jeclaan darta wax walba uu sameyn karaa qofka aan ku jeclaan darta waxba uma sameyn karo inuu iska ka doomeeriyo maahine wax kale ma lahan anigana go'aan ayaan ku gaaray bartaas inaan iskiga harwaayo waxaan isiri biribo daawado ku dhacdo mid maqato uu kaaga dhaqaajinayaa iskiga har go'aan waxaan ku gaaray wiilkii aan dariiqa cilada ugu tagay inaan u laabto oo waliba aan noqdo xaaskiisa anigoo ka diiday marka hore haddana wiilkaas aad qalbigayga dhaxlay laakiin kii hore markaa soo xasuusto waxyaalo badan ay ugu soo dhashtay oo xanuun badan inta aan sugay oo niyad aan ku hayay sida fudud oo iga dhaqaajiyay hadallo badan oo xumaan u idhaha laakiin waxba maanan arki jirin waayo waxay leeyahay wax sahlan laakiin hadda waxaan ogaaday qofka ku jecel marnaba inuu sameel cidla ah kaaga dhaqaajinaynin kal ilaala baay aad baa ugu xunaay taariikhdaas fooshan kugu dhacday alxumo jacayl baa dareemaysaa oo kula qaybsanaa baay macana aad baan ugu maasantaa sheekada qaaliga nala wadaagtay aniga asxaabtay dadka dhalinyarada oo wallahi barnaamijka dadka dhan hadda commentiyada soo qorayaan aad bay ugu xumaadeen wallahi قصاد ما يوحد بوحدي الدنيا أنت جوبت وحال بود لكل مسا صماحا قف اللي صما صح مركا وحال بوها في الشارع أنا وحن مقلد يرقفك وجعل مرنا والطريق عدلام كاي تجا لكن قفك أدي أجعشها مرنا والطريق عدلا وكاي تجا لكن ديدي لو ملين جري لقى يا باي لقى يروح اسمي جيران laga yaabaa inuu asaga waxba ku hanjayla dhamaan dhalinyarada muuqaalkan daawanaya waa qisada waxa weeye qisada runtii waxa weeye in lagu cibro qaato u baahan qofka bini'aadanka uu jeclaan kara laakiin waxa qurux badan qof kasta qofka uu jeclaado inuu tixgeliyo inuu haduu qofka uu wax la sii wadi karana uu saacad ugu sheego haduu wax la sii wadi karana uu saacad ugu sheego laakiin qofka inaad meermeerisid oo waxa weeye waqtigana akulumisid 5 sano waqti yar ma aha waa waqti badan xaqiiqatan markii runta laga hadlo waxa weeye wax lagu jeexjeesi karo ama maartay loo qaadan karo maartay runtii wax ciyaarana ma ahan marka qof kasta oo waxa weeye arintan oo kale ay qabsato waxa qurux badan inuu arimahan oo kale marka go'aan qaadanaysin waxa weeye qaab badan baa go'aan loo qaataa in ilaahay laba ragcad u tukatid istikhara kadib go'aan qaadatid waxa weeye go'aankuna waa wax raganimo ah qofka bini'aadanka go'aan haduu qaato ama ha xumaado ama ha fiicnaade waxay muujinaysaa qofkaas inuu yahay qof go'aan leh marka adoo go'aan qaadanaya hadana ilaahay tirisaarasiisa ku daraya baa waxa qurux badan inaad go'aan ka qaadanayso noqdo go'aan waxa weeye aad ku dhaqmaysaa hadhowtadii laakiin aad hadhowtadii ka meermeerinaynin جاي حنون هل ميدان وشيغا رجع الصومالية تبعاً
dumarka horta qalbi way leeyihiin wax way jeclaan karaan صح naagtan laguma raaco qurux laakiin waxaa lagu raacaa inay dabeecad wanaagsan tahay إن الدين leedahay inay faamilkaaga farxad ay siin karto صح laakiin haddaad tiraahdo waxaan ku raacayaa qurux waxaan ku raacayaa lacag wallaahi run ahaantii faa'iido kaagama imaanayso hadday intay magaalada ay tagtay sawir qurux badan soo gashay facebook soo dhigto hadday inta magaalada ay ka baxday marba meel ay kusoo baashaasho hadday tinteeda qaabiso dhar jirkeeda saaraya ay gashato wallaahi taasi qurux maahan laakiin waxaa fiican midaas turan ha gurigooda aan ka bixaynin marnabana era qaldan aan ku dhaqaaqeen ragga soomaaliyeed waxay yaqaanaan mararka qaar dumarka ay shukaansanayaan marmarka qaarkiis waxay tusaan heer waxay gaarsiiyaan haddaa jecesho kalsooni aad igu qabto sawirkaaga ii qaaban ii soo dir laakiin dumarka qofka ay jecel yihiin marnaba kama celi karo waxay rabaan saasay taa raggana way ku digtaan mana fiicna digashada waayo wiil waa kula dhashtay wuuna ku dhalay